idilkiina qaarta waad islaamay meel walboo daafaha dunida ka joogtaan social media waayaan dambe waxa iska noqday wax dadka waqtiga looga lumiyo wax aan faa'iido u lahayn waxba u soo kordhinaynin dadka lagu mashquuliyo laakiin anigu waxaan idin hayaa wax ka duwan oo ah maskaxdiina exercise inaa u samaysaan sidoo kalena barnaamijkan youtube-kayga kusoo kordhin doonaa isagoo abaalmarin wata ereyga koobaad waxaa lagu yiri jaad ka mid ah xoolaha aan dhaqanno halkaas koobaad waxaa gelaysa xoolaha aan dhaqanno magac ka mid ah laga doonaya muxuu noqon karaa talo adaa laga rabaa kan labaad waa nooc ka mid ah caanaha xoolaha halkan waxaa gelaya waa erey magac ka kooban 4 xaraf waana nooc ka mid ah xoolaha caanahooda nooc ka mid ah caanaha xoolaha abo masalana adaa laga doonaya ka saddexaad ayaan u gudbeynaa talo muxuu noqon doonaa wuxuu ka kooban yahay isagana 7 xaraf waa magac Soomaali ragga loo bixiyo magaca Soomaali waxa loo jeedaa dee magac Soomaali sax ah oo ragga loo bixiyo kan afraad waa nooc ka mid ah saliidaha aan isticmaalno abo 1 2 3 4 5 6 7 waaye isagana saliidaha aan isticmaalo nooc ka mid ah okay faanole farka ma qodna kan shanaad waxaa laga rabaa mid ka mid ah dalagyada dalkeena ka baxa 1 2 3 4 5 taas guud ayuu galayaa okay maxaa ku xiga lixaad oo ah kan ugu dambeeya magaalo ka mid ah magaalooyinka dalkeena Soomaaliya kana kooban waa 7 xaraf nasiib wacan ayaad ilaahay idilkiin meel walba joogtaan barnaamijkan youtube-kayga ayuu ka bixi doonaa hadduu eebweyne idmo laakiin bal hadda waxaa arki doonaa bal dadka inay ka helaan sida ay noqoto waa jawaab celinteena mahadsanidin asalaamu calaykum waraxmatullah